ألف صلى الله على قمر الكمال. qofkii inuu qabaysto qabays dhammaystiran inta awooddiisu ay tahay inuu isnadiifiyo barfuun iyo cadar waxa ugu idgoonee gurigiisa yaalla inuu isticmaalo dhar midka ugu qurux badan inuu soo qaato waa sida sunnada ah. taasi waxa aan ka hadlayo dhan waa ragga, ama dumarku ciddiyaha way gaabin way isnadiifinayaan dharka ugu fiican ee jirkeeda astura ayayna soo qaadanaysaa. ayada barfuunka bannaanka uguma soo baxaysa gabadha, maxaa yeelay fitanka ayaa la diidayaa. shareecadeennu waxay diidaa, waxay ka hortagtaa intuusan wuxuu dhicin. alwiqaayatu khayrun min alcilaaj. intaada isbitaalka tegin marka hore daawada isticmaal oo fitamiinka isticmaal. haddaad qufacdo oo aada xanuunsato inaad daawadu ku anficiya in kale war kama haysid. saa daraaddeed nadaafad meesha ugu dambaysa waa inuu qofku u soo baxaa. waxaa wanaagsan qofku markuu soo dhaqaaqaba inuu bilaabdo ama uu bilaabo takbiirta allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allahu wallahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd. inuu soo socdo inuu soo kallaha ayaa fiican. markuu soconayana tallaabada uusan boobsiinin, maxaa yeelay lugta midigta ah ajir baa looga qorayaa, lugta bidixda ana dunuubta iyo dembiga ayaa looga daadinayaa. qofka muslimka ah faqiir kasta oo waddada uu ku arko inuu caawiyo oo mataqaanaa wax siiyo wuxuu awoodi karo, salaamo oo assalaamu calaykum uu yidhaahdo ilaa uu ka imaado goobta salaada. goobta salaada marka la imaado waxaa la doonayaa takbiirta in kor loo qaado, takbiirta in kor loo qaado si jamaaci ah dadku ay u wada qaadaan, oo aan intuu qolo qaado qolada kale ayna ka daba dhihine nin walba uu markaa iska qaado kelimaadkaas ayagee maxduudka ah. kelimaadkaasu mara nas ku soo arooray oo nas saxiixa loo hayaa. allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allahu allahu akbar ama wallahu akbar walilaahi alxamd. kelimaadka in lagu gaabsado ayaa sunnada u dhow. nabigeenna sala allahu calayhi wasalam mar walbaba sunnada nabiga inaad ku ekaatana adiga ajri iyo wanaag baad korsatay. xubbi iyo jacaylka nabigana waad korsatay. mar kasta oo wuxuusan nabigu calayhi salaatu wasalaam kuu jidaynin aad ku dardartana kolba waad khilaaftay sunnada nabiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam. sunnada in kor loo qaado, kadibna ragga iyo dumarkana ikhtilaadka isdhexgalka la kala ilaaliyo oo aan la isdhexgelin. waxaa ku xiga salaada in loo istaago. salaada markii loo istaago kadibna oo salaada la tukado, ragcadda koobaad 7 jeer allahu akbar, ragcadda labaadna 5 jeer allahu akbar. kadibna imaamku markuu salaada ka baxo inuu khudbo u istaago. khudbada in la dhegaysto waajib ma aha, laakiin in la buuqa ma haboono. qofka baxaya wuu bixi karaa, laakiin midka dhegaysanaya inuu si wanaagsan u dhegaysto ajir iyo xasanaad ayuu ka helayaa. khudbadu waxaa la doonayaa inay noqoto khudbo caam ah oo dhammaystiran oo meel walba taabanaysa caqiidadii iyo akhlaaqdii, suluugii iyo dhaqankii, waaqicii iyo noloshii, dhaqaalihii dadka muslimiinta ahaa, tacaamulka iyaga dhexdooda ah, waladka iyo waalidka iyo ilmihiisa, xaqa derisku isku leeyihiin, xaqa ninka iyo xaaskiisu ay isku leeyihiin, muslimiinta cudurrada haysta sida loo daaweyn lahaa dhexdooda, kulli inay noqoto khudbo shaamila aakhare dadka xusuusisa rabbi ku xidha subxaanahu jala wacala. khudbadu markay intaa ku dhammaato ayuha alikhwa oo lasoo kala dareerayo, waxaa wanaagsani in haddanana waddadii waddo aan ahayn inaad marto, waayo way kuu makhraati kacaysaa maalinta qiyaamo. hadday foqaro iyo masaakiin joogaanna waad siinaysaa. maalintaa marka in las soo ziyaarto oo qaraabada iyo asxaabta iyo deriska ay isla farxaan waa wax aad iyo aad u wanaagsan. haddaba ciidda qiimaha badan ee na sugaysa waxaan ku soo khatimi lahaa in laga farxiyo da'yarta iyo carruurta oo magaalo walba dadka mas-uuliyiinta ah ee waxgaradka ah inay intay xoolo isku daraan oy lacag isku daraan. waxaad arkaysaa maca alasafi shadiid magaalo dhan oo ciidaysa oo aad mooddo inuu meyd dhex yaallo, magaalo dhan oo ciidaysa oo aad mooddo wax faraxsanba qof faraxsanba inaada ku arkin laga yaabo inay yaraato.
oo wejigiiba uusan faraxsanayn oo ilmihii aan xataa laga farxinaynin oo xataa nacnac yaryar intii meelaha laga soo gado xataa aan loo wasacaynin waxaad moodaa waa wax aad iyo aad u liita runtii waxaa wanaagsan in caruurta aad looga farxiyo waxaa wanaagsan in caruurta wanaag looga farxiyo oo ay farxaan maxaa yeele waa ciiddoodii haddii kale waxaa weeyaan ciido kale ayaa looga farxinayaa oo markaa caqiidada islaamka dhaawacaysa ayuha alikhwa ciidan nicmada ee alle una gaadhsiiyey iyo soonkan aan soo soonnay iyo farxaddan iyo salaadani ma haboono in lagu dhex qaso wax ilaahay xarimay subxaanaه wa tacaala waa nicmada in ilaahay loogu shukriyo oo ilaahay loo celiyo ayaa wanaagsan waxaad arkaysaa dadka qaarkood